saraakiil bakistan ayaa sheegay in ugu yaraan 65 qof ay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacantay dab ka kacay tareen agagaarka magaalada rahmir khan oo ku taalla bariga gobolka punjab ee dalka bakistan. tareenkaasi ayaa ku jiray safar uu kaga yimid magaalada karaaji kuna socday rawalbindi markii musiibadu ay qabsatay. wasiirka khadadka tareenada sheekh rashiid axmed ayaa sheegay in dabkaasi uu ka kacay 2 burjiko oo kuwa gaaska ah oo rakaabku ay ku samaysanayeen quraac. sheekh rashiid axmed ayaa waxaa uu sheegay arrintaasi in ay dhacday iyadoo dadkuna ay tareenka ka buuxeen. muuqaalo telefishinka laga sii daayay ayaa muujinaya dabkaasi oo ku sii baahaya tareenka iyadoo la maqlayay dadka oynaya. dadka bakistan badankooda ayaa marka ay safrayaan waxa ay qaataan cunto, hase yeeshee waxaa mamnuuca in la qaato burjukooyinka gaaska, waxaana la sheegayaa in baaritaan lagu samaynayo dhacdadaasi. qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ku nool dalka Kenya, gaar ahaan ganacsatada, culimada iyo aqoon-yahanada ayaa bilaabay dadaalo xoog badan oo loogu gurmanayo dadka Soomaaliyeed ee ay saameeyeen fatahaadaha ka jira qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya. haddaba shir lagaga hadlay arrimahaasi waxaa ka qayb galay wariyaha VOA Nairobi Khadar Maxamuud Xareed oo warbixinta noo soo diray. Soomaalida ganacsatada iyo culimo-diinka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa bilaabay dadaalo loogu gurmanayo dadka ay dhibaatada xoogan ka soo gaadhay fatahaadaha xoogan ee ka jira dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Culimada waxaa kamid ah dadaalada ka bilaabay magaalada Nairobi Sheekh Maxamed Cabdi Umal. ku soo dhawow marka hore bal kulankiina maanta iyo waxyaabaha ku saabsanaa iyo ahlan wa sahlan bismillahir rahmaanir rahiim. kulanku kale wuxuu ku saabsanaa musiibadaasi ka dhacday wadanka gaar ahaan gobolka Hiiraan caasimadiisa Beledweyne sidii wax looga qaban lahaa ummadda loogu gurman lahaa gudiyo kala duwan iyo si degdeg ah sidii ummadda wax loo gaarsiin lahaa saasuu fadhiga ku saabsanaa. kolay hadda wixii ka dambeeyana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in tillaabooyin degdega la qaado wixii gurmad ah iyo wixii wax qabadan insha allah si aad u dhaqso badan in dadkaan gaarsiino insha allahu tacaala. marka dadka halkan isugu yimid waa dad kooban, sidee doonaysaan inaad wax ku aruurisaan? waxaan leenahay qaab aanu hadda ka hor ku uruurin jirnay musaa'ibtii horey u dhacdayn ka qayb qaadanay. waxaa jira ganacsatadu gudiyay leeyihiin, culimmadu gudi bay leeyihiin, safaaraddu sidoo kaleeto aan wada shaqayno. gudiyadaasa kulmaya kadibna gudiyo farsamay samaynayaan, dadka meelaha lagu ballaminayaa, masaajidda waxbaa lagaga uruurinayaa. qaabkaasaa xilli kooban ayaan insha allahu tacaala ku helaynaa wixii dadku ay ku deeqayeen. Soomaalida mararkii qaar waxaa dhacda in dhowr meel oo kale wax lagu aruuriyo, marka si guud ma oo la hadasheen oo hal meel sidii wax gurmadka loogu aruuriyo oo dadkii loo gaarsiin lahaa? hadda ayaan insha allahu tacaala baaqaasi fadhiga wixii ka dambeeya ayaanu baaqaasi jeedinaynaa oo dadka meeshii wax ku hagaajin lahaayeen halkaa iyo halkaas. xataa dad waxaa jira dibadahaas nagala soo xidhiidhaya xaggeen wax kusoo hagaajinaa leh. marka dadka magacyada iyo xawaaladaha iyo akownnadaas iyo ayaanu tilmaami doonaa marka insha allahu tacaala fadhigu dhammaado iyo go'aamadiisana soo baxaan insha allahu tacaala. Nairobi waa xarun weyn oo safaarado kala duwan iyo hay'ado kala duwan baa jooga. safaaraddii Soomaaliya ma la xiriirteen oo xiriir kale oo aan ka ahayn in ganacsatada iyo jaaliyadda aad la kulantaan ma samaysan? waa samaynay. safaaradda waa wada xidhiirnay, maanta safiirka wada hadalay, waana wada shaqaynaynaa oo muxuu ahaayey ganacsatada iyo culimada iyo safaaradda iyo ummadda Soomaaliyeed xataa siyaasiyiinteeda waddanka jooga si wada jiraan u wada shaqaynayna. maxaa yeelay musiibadu waa musiibo ka ballaadhan wax yani hal qolo wax ka qaban karaa. midda labaad caadan u leenahay Kenya markaan joogno waxyaalaha ummadda ku dhacay inaan si wada jira ugu istaagno. marka waa wada jirnaa barnaamijkan insha allahu tacaala waa ka wada soconaa, waa laga wada shaqaynayna. aad baa umahadsanta sheekh. jazakallah khayr. sidoo kale dadaaladan loogu gurmanayo dadka ay abaaraha saameeyeen guddiga jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani Kenya ayaa ka mid ah. magacaaga iyo dadaalada socda marka hore? Cabdulqaadir Cabdi Deeni. waxaan ka shaqaynaynaa sidii ummadda Soomaaliyeed ee gudaha dhibaatada ilaahay keena ay ugu dhacday sidii loogu gurmin lahaa ummadda Soomaaliyeed. maanta shirkan waxaan u qabanay sidii ummadda Soomaaliyeed ay hadda la kuuraya tabarracada uga gaarsiin lahayd degdeg ah
waqti dheerna in la qaato lama rabo. ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay arrintan si degdega uga jawaabaan, inay walaalahooda caawiyaan. geeda korkooday ku nool yihiin, guryahooda waa ka baxeen, meel bannaanka ay ku nool yihiin. waxaan codsanaynaa ummadda soomaaliyeed oo baaqayga dhegaysanaysa inay si degdega uga jawaabaan arrintaas. maantana haddaan la ku reeyahay dadka soomaaliyeed oo gudaha jooga aad baan ugu mahadcelinayaa iyo dowladduba siday ugu gurmanayaan. laakiin kenya haddaan joogno waa inaan u gurmanaa, waa in qof kasta oo soomaaliya oo xanuunkaas dareemahaya si degdega uga jawaabaan. wax ma bilowdeen weli mise? shirka galabta aan qabanay wuxuu ku saabsan yahay sidii loo tashan lahaa, sidii arrintaa degdeg looga jawaabi lahaa. sidaad arkaysaan baa Sleep Business Community baa fadhida ganacsatadii soomaaliyeed, waxaa fadhiya haddaan la kuureeya culimmadii oo sheekh iyagu ugu weynaa sheekh maxamed cabdi umar uu hoggaan u yahay oo fadhiyo, oo awalba ummadda soomaaliyeed u shaqayn jiro oo tabarrici jiray. dhammaantood way fadhiyaan. jaaliyadii soomaaliyeed oo gogosha dhigtay iyadu way fadhidaa. marka dhammaan ummadda soomaaliyeed looma kala harin. goormaa bilaabaysaan marka inaad aruurisaan? saacadda aan kula hadlayna waa in la bilaabaa. guddiga markii la diyaariyo, guddigii baan hadda diyaarinaynaa, degdeg baan uga jawaabaynaa. hadda saacadda aan taagannahay waa in arrintan wey waxaan u fadhinaa oon ka jawaabaynaa insha allah. magaca ku bilow. sheekh bukar jimcaale gaabo. sidaad arkayso ganacsatadii, dadweynihii, culimmadii dhammaan waa isu nimid. waxaan isaga nimid masiibooyinkii ka dhacay dalka oo ay u horayso magaalada beledweyne. waxaan rabnaa, aan doonaynaa hongalabta isaga nimid inaan gurmad degdega samayno. haddana aan guddiyaal magacaabanno, guddiyaashaasoo ka howlgelaya sidii loogu samayn lahay dadkaas especially jaaliyadeenna soomaaliyeed ee Nairobi, sidii loogu samayn lahay dadkaas gurmad. hadda guddiyaalaan magacaabanaynaa, ay culimmadu ku jirto, ganacsatadu ku jirto, dumarku ku jiraan, dadweynahoo dhan ka kooban. dadka way dhibaataysan yihiin. goormaad intaad wax aruurisaan gaarsiinaysa? sida ugu dhaqsiyaha badan oo laga bilaabo berri, haddii aan laydmo sida ugu dhaqsiyaha badan baan rabnaa inaan u howlgalno. waana rajaynaynaa sida ugu fudud inaan howlahaas noogu qabsoomi doono insha allah. khadar maxamuud xareed aad buu mahadsan yahay oo warbixintaas ku saabsan taageerada loo ururinayo biyaha fatahadaha magaalada beledweyne nooga soo diray magaalada nairobi. halkaad ka dhegeysanayseena waa VOA Washington.